axmed cumar yuusuf waa dhibana lugtiisa ku waayey qaraxii bishii Diseembar ka dhacay isgoyska X Control Afgooye maalmo ka hor sida uu ahaa dareenkiisa iyo maanta waa u kala labo maamulka shirkadda Hubaal Traders oo qaadanaya doorkiisa daryeelka bulshada iyo garab istaaga kuwa caawinaadda u baahan ayaa maalgelin dhiirigelin si uu u bilaabo maareynta nolol maalmeedka qoyskiisa maanta u sameeyay Axmed sidoo kalena maamulka ayaa Axmed ku caawinaya sidii loogu xiri lahaa lug artificial oo casri ah waxaana loo maalgeliyay lacag gaaraysa $1,000 kadib munaasabad kooban oo xarunta shirkadda ka dhacday Aba Cumar Yuusuf ayaa ka mahad celiyay doorka muhiimka ah ee shirkadda Hubaal anigoo ah Axmed aabihiisa shirkadda Hubaal waxaan idinka mahad celinayaa wiilkayga oo shaqo abuur aad u sameeyay Axmed Cumar Yuusuf oo dareen farxadeed laga dheehan karo wajigiisa ayaa waxa uu u mahad celiyay shirkadda Hubaal oo caawinaad muhiim ah u sameysay waxa uu mahad celinayaa shirkadda Hubaal maalgelinta ay sameeyeen iyo sida oo macnaha lugto kale inay u caawiyaan waxa uu mahad celinayaa shirkadda Hubaal kulli had waxaan nolosheeda mustaqbalkeeda aan ku dhisto kulli had ay sameeyeen waxaan mahad celinayaa shirkadda Hubaal mar walba waxaan u rajeynayaa qof walba saan u dhawaataysan inay u garab qabtaan si ay adduunkooda ku meel maraan oo aakhirna kulli ay ku jarmuteystaan Sugaal Cali Ayaanle oo ka mid ah maamulka sare ee shirkadda Hubaal Traders ayaa sheegay in shirkadda Hubaal ay u taagan tahay mar walba caawinaadda bulshada gaar ahaan kuwada taagta daran isagoona sidoo kale faahfaahin ka bixiyay garab istaaga shirkaddu ay u muujisay dhibane Axmed bismillaah hadaynu nahay bahda Hubaal waxaan mar kale ku faraxsanahay inaan dadka walaalaheena dhibanayaasha aan caawino isla markaana isgarab taagno xilliyada dhibaatada ay jirto waxa maanta xafiiskeena keenay isla markaana aan ugu sameynay maalgelin dhibane Axmed Cumar Yuusuf oo run ahaantii qaraxii X Control Afgooye lugtiisii ku waayay Axmed waxay shirkadda u balan qaaday in magaranaysa qalabka heerka ugu sareeyo iyo qalabka kan ugu qaalisan aan u sameeyno maadaama aan lugtiisii saxda ah loo helaynin haddana qalabka ugu wanaagsan in insha Allah lugta u galino waa talabaad Axmed waxa uu lahaa reer asaga markaa ilaa 3 caruur ah sidoo kale tan qoysba u soo kici jiray isla markaana fiirsan jiray shirkaddu waxay u balan qaaday inay lacag $1,000 u maalgeliso isla markaana bil kasta faa'iidadiisa oo soo doonto insha Allah reerkiisa markaa oo ku caawiyo insha Allah shirkaddu waxay diyaar u tahay in dhibanayaasha caynkan oo kale ay isgarab taagto bulshada wixii laga keeno in dib loogu celiyana waa waajibkeena iyo mas'uuliyadeena kaalinta garab istaaga ah ee shirkadda Hubaal Traders ee Axmed ayaa ka dhigan in Axmed uu dib u bilaabo maareynta qoysas noloshoodu ay isaga ku tiirsanayd